marxuumka geeriyooda ayaa lagu magacaabi jiray Cali Saciid Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaan Cali Sheekeeye waxayna kooxo hubaysan ay rasaas oo kaga qaadeen marxuumka xilli uu hortaagnaa goobtiisa ganacsi iyagoona dhowr xabo la haleelay marxuumka isla daqiiqada kadibna goobta ku geeriyooday waxaana halkaasi dhaawac ka soo gaaray muwaadin kale oo Soomaali oo la socday marxuumka geeriyooday ka oo ay xabaduhu ka haleeleen lug iyo gacan waxaana durbadiiba loola cararay isbitaal ku yaala magaaladani Johannesburg goobta uu falkaani ka dhacay oo lagu magacaabo Holomisa oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jirta magaalada Johannesburg ayaa waxaa soo gaaray durbadiiba ciidamada booliska ee deegaankaasi mana jirto cid ay u soo qabteen falkaani goobta ka dhacay marxuumka geeriyooda ayaa kamid ahaa dhalinyarada sida weyn looga yaqaano xaafadda ay Soomaalidu ka degan yihiin magaalada Johannesburg ee Meva waxaana lagu wadaa in lagu aaso qabuuraha islaamka ee isla magaaladani halka muwaadinka dhaawacmana la soo sheegayo in xaaladiisa caafimaad ka soo reynayso sidii hore dilka dhaawac iyo boobka lagu hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka ganacsada dalkani Koonfur Afrika ayaa caado ka noqday dalkani mana jirto talaabo lagu joojinayo dhibaatada lagu hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaana marsi horeysay dawladda dalkani Koonfur Afrika ku dhawaaqday in ay ku dadaali doonto sidii loo haki lahaa dhibaatooyinka lagu hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka ganacsada tuulooyinka hoos yimaada magaalooyinka dalkani Koonfur Afrika Idris Sheikh Ahmed Guure telefishinka caalamiga Kalson waddanka Koonfur Afrika.